بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بدرسي تاريخ الإسلام حين سجلت عثمان خلافadiisii 12 sano 6 sano u horeysay khilaafada inay toosneed 6 kale intaan Cabdullaahi ibn Saba iyo kooxdiisii inay khilaafadii gilgileen oo ay abuureen fitno ay rabaan in maxay ahayd muslimiinta guulaha faraha badan ee soo daba kacay laga bilaabo maxay ahayd khilaafadii Abu Bakar oo islaamku si xooli u faafay khilaafadii Umar 10 sano oo muslimiinta ay dowladihii waaweyn ee ku hareeraysanaa ee gumaysan jiray ee meesha ka baxeen islaamku booskiisa galay guushaas faraha badan markaa inay dhibtay in yahuudiga meesha laga saaray furuski dhacday dhulkii ayaga ee maxay ahayd gaalada ka tirin jireen oo islaamku u galay dadkii oo shucuubtii oo muslim noqotay marka ninkii yahuudiga ee nabiga masaajidka ugu soo galay hadda ka hadalna uu dhihi jiray ninkan hala dilo ninkii ayaa fitnada abuuray marka Basra iyo Kuufa Ciraaq ka abuuray haddana Masar ilaa khaliifkii loogu imaaday Uthman marka xadaaradii muslimiinta markaas xadaarad weyn meesha khilaafada afarta khilaafa oo raashidiin dowladii Rabiibi oo bilaaw ahayd marka ma lahayn waxa loo yaqaan al-haajib ama bodyguard waxa loo yaqaan in khaliifka la waardiyay in khaliifka ila nabiga Ilaahay waa waardiyin jiray wallahu ya'simuka min inta soo jira la isku dayay in la dilo laakiin laguma guuleysan Allah subhanahu wa ta'ala ya ilaalin jiray malaa'ika ilaalin jirtay oo Ilaahay u soo diray nabiga marka laguma guuleysan laakiin afarta khilaafa oo raashidiin Abu Bakar markii laga reebo saddexda kale waa la dilay maxay tahay بسبب ما يصير لهم وردي منها مركب ورديها وحب بلعبان دونا بودي كارك أو محاجبك إن خليفة ذاتك لقى قرية أو وردي لو سماية أو ما كل وجلا محي تقبل لبارة وقتي معاوية بلعبت وقتي معاوية بلعبتي مركا خليفة كما تقولي صار الله وصل قلي مسلمين وفتوحات وكم كان عيدا كمسلمين حق الشام دولة بيزنطية لندن قال معي حق كورونا محي العراق حق آسيا ده حق قلي وإسلام إنديا حدود ديس وكوسي كان حق وقوي أفريقيا أندلس وكوسي سعودة ومك إسلام كبرنا واتجاهات كلا دوان ومحيط مسلمين اتجاهات وكلا مقايهين يعني منك إيجا كون شاب قليل قليل كم شقة تقوسن قليل كم كذا دري خلاف كم كفتنا دي وقت يعني بلاوته وقت يعني بلاوته خلافة علي يا معاوية أو كهر ماضي علي كهر ماضي مركا فتنة دي بلاوته فتنة بين الصحابة مركا في مدينة يا أهل الحجاز علي بيدورتين وحاكى لأنتو عراق waxay qaybaha soo raacday asagana cali bay qaliib ka noqdeen masar sidoo kale muaawiya ka hor imaaday wuxuu uga hor imaaday dadkii Uthman dilay isoo gacan gali Uthman wayna adeerkay diyadiisa iyo dilkiisana ana xaq u leh qof ari iga xiga ma jiro caliyow maxay ahayd aan heshiin maxay ahayd dadkii cali dilay Uthman dilay soo gacan gali ana khilaafada ku wareejinaa oo ku wadeecaya halkaas ay fidnada ka bilaabatay marka علي marka uu ka guuray caasimadii muslimiinta asagoo marka Madiina deganaa meeshii fidnada ka bilaabatay Basra Ciraaq nabiga uu sii sheegay al-fitnatu haahuna dhanka bariga gacanta ku tilmaamay marka maashi nimankan ka soo askumeen iyo tagay meeshii marka waxa kale ka hor imaada marka Aisha radiyallahu anha iyo Zubayr iyo Dalha marka reer Basra iyo reer Kuufa marka Ali caasimadii muslimiinta Madiina Munawwara saddexdaas khaliifo Abu Bakar iyo Umar يا عثمان صدح دولة مدينة منورة يا صليبو أهد عاصمة أهد مركا مدينة وكجوري وجوري كوفة هالك صفريست مركا سوى حماشة قبل لودان وسوق وجاده ونحليه طبعا مركي أهرس وعلي ومحي هاتو وقدسير العربي كبحه هالك معاوية وجاده صفة أوفيرية أسبابها كان معاوية إنه جوريستو وعلي أسرة جروس مدينة كلمة المسلمين تا بيئة علي من بيئة في نبض بيئة هالك بيئة معاوية ودجنا بيئة شام بيئة حضارية هاد dadka reer Shaam Muawiya adeecsanayeen ka dambeeyeen marka Ali markuu soo dagay Kuufa soo dagay wuxuu bilaabay inuu sulux ka dhex dhaliyo reer Kuufa iyo reer Basra marka Basra waxa joogay Dalha iyo Zubayr joogay wuu la xaajooday marka nimankii Uthman dilana ciidanka waxay ku dhex dhunteen ciidanka Muawiya ciidanka Ali uu wato ciidan 80 kun ku dhawaada ilaa 120 kun la sheega ciidan ah iyo wata ciidankii futuuxaadka muslimiinta jihaadka maxay tahay islaamka faafina معاوية كمان يرسل أصلاً عيدا كده دنك بيزنطيق أو دنك رومانسك هذا يمكن لبضع الصحابي وسكف سهر جيده لبضع عيدا علص بيك لوطان صحابتنا قيب حوق لو حي رعسيهن أو معظم الصحابة عالي برعسيهن قيب كلام معاوية رامك ضل حي الزبير يقول حي فكر معاوية كمان وأخذت عثمان دير هلا سواقفته هلا قصاصك بعدنا دولة هلا لسه علينا الحوير ضد كاس هذا مصور قبل كرنا عيدا كل حدونتين وضد بدن أو ترى بدن كل شيء بقول خفة suurtagal nooma noqonaysa inaan hadda wada qisaasno aan dawladda wada dhisano oo heshiino kadibna aan dhisno aan raadino dadka marka fikirkii reer Basra reer Kuufa isku raaceen bari
aan isku nimaano aan heshiino sulx aan sameyno reer basriha marka asagoo marka rabo inuu ciraaq mideeyo masar xaggeeda dhib kama jirin kadibna mucaawiye ula xaajooday dhulka islaamka intiisa ka dhan waa laga adeecay xijaaz cali baa la raacay maadaama cali qof culus uu ahaa qofkii u hore islaamka soo galay asagoo caruur ah nebigu islaamku ku qaangaaray ku aqriyaystay saxaabadii nebigu ku xisaabtami jiray janaalada nebigu ku xisaabtami jiray gabadhii nebigu qabay fadli ahaan tobanka jannada lagu bishaaray ku jiray intii abubakar iyo cuthmaan iyo cali ay talinayeen la taliyo ahaa madiino dadka lagu xisaabtamo u ahaa marka cali nin culus u ahaa mucaawiye laakiin dadka gadaal kasoo islaam u ahaa abu sufyaan baa dhalay asagana dagaaladii futuuxaadkii uu kaalin weyn ka lahaa marka labada saxaabi ma kala dhacaan laakiin fadli ahaan cali baa horeeyey marka saxaabadii waaweynna cali bay taageersanaayeen markuu arrintii cilaaq inuu xaliyo lagu heshiiyey subaxi yaa markaa nimankii cabdullaahi bin saba waxay dhaheen hadday reer basri reer ciraaq kuufa midoobaan ciraaq anaga meesha ka baxeyno waa inaan isku dirnaa marka ciidankii cabdullaahi bin saba raacday iyo kooxna basra geelo basriba kuufa la magaalo isku soo horjeeda isku dhow kuwana kuufa kasoo baxeen markaasuu dhaheen dagaalka idinka bilaabo subaxi markaa dagaalkii u horeeyay muslimiinta dhexdooda ka dhacaya la yiraahdaa macrikatul jamal iyo habeen ka dhacday waxaa lagu magac daray caaisha markaa iyo dalxa iyo zubayr waxay ka yimaadeen xaramkay ka imaadeen markii cuthmaan la dilaayay magaalada madiina cidlay ahayd caaisha xajkay ku maqneed dalxa iyo zubayrna dadkii xajka aaday israaciy ku jireen marka way gudbeen basri kuufay tageen markaa caaisha markaa basri joogtaa waatuu nebiga sii sheegay madiine meesha heblo eeyaha ka qeylaan tegi doonto marka caaisha meesha joogta markaa basri joogtay dagaalkii markuu dhacay marka subaxi halkii lagu heshiin lahaa yaa markaa nimankan qab subax markuu aaga baryay saq dhex waxay dhaheen reer basro reer kuufana soo weeraray reer kuufana waxay dhaheen reer basrana soo weeraray dagaal culus oo ba'an oo lagu baaba'ay yaa meesha ka dhacay oo qof walba wuxuu ku dagaalamay uusan garanayn calina uu dagaalka inuu joojiyo u rabo dagaalka waa istaagi waayay waxaa dagaalkaas ku baxay oo lagu diray dalxa ibnu cubaydillah oo 10 bashiriin ahaa waran falaar duuraysa ku dhacay maxay ahayd zubayr oo nin maxay ahayd asagana nimankii cali ciidankiisa ka tirsanaa munaafiqiinta uu ku jira iyo asagana iyo zubayr si kama u dilay marka labada saxaabiba halkaas ku baxeen oo ah labadii 10 bashiriin ahaa dagaalka marka jamal waxa lagu baxshay dagaalka markuu istaagi waayo oo maxay tahay lagu daalo u soco istaagi la yahay marka caaisha waxay tahay waxaan socdo soo fiir marka caaisha radiyallahu anha marka jamalkeedii wata haddana markii zawjada rasuulullah xaaskii nabiga ma joogto ciidanka dan waxay isku soo hareereeyeen caaisha marka cali waa wuxuu dhahay gowrac maxay ahayd ratiga gowraca howdashka caaishana halii keeno dagaalkii waa istaagay markii ratigii la gowracay uu neefkii fariistay caaisha marka howdashkeeda bahalkii oo ratiga korkiisa ay saarneed yaa lasoo qaaday cali kane maa inta ku keeno yaa umuna hooyadii xaaskii nabiga maxaa inta kasoo doontuu madiina maroma maxaa kaasoo kaxay way ka shalaysay marka way heshiiyeen way is afgarteen wuu marka rati kale iyo safar kale u hagaajiyey wuu celiyey dagaalkaas marka reer basri marka wixii ka dambeeyay way heshiiyeen marka cali markaas waxaa raacsan reer ciraaq oo dhan raacsan iyo masar iyo xijaaz dhulkii islaamku ka bilowday iyo yeman marka waxaa kasoo horjeeda marka shaam oo kaliya marka shaam mucaawiye warqadooda wuxuu la xiriiray aan heshiino kadibna khilaafada aan dhisno marka mucaawiye waa ka diiday wuu ka diiday mayuu yiri ilaa dadka cuthmaan ay soo gacan geliso kadib aan heshiino markaas maxay ahaato yaa dawladda ku ogol dhahay markii intaas u marayso marka yaa dagaal kala hadana dhici doono muslimiinta dhexdooda mar labaad ah oo culus darsigeena kale noqon doonta wallahu a'lam